xildhibaan Axmed Barkad Obsiyo oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland gaar ahaan kuwa laga soo doorto gobolka Awdal oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu komishanka xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland ugu baaqay in ay soo ururiyaan isla markaasina ay gubaan buugga warbixin sanadeedka sanadka 2020 ay soo saareen komishankaasi waxaanu sheegay in xildhibaanku ku yaala buuggaasi khariirada Soomaaliland oo si qaldan loogu muujiyo gobolada qaar halka uu sheegay in gobollo kalena lagu soo daray waxa uu xildhibaanku sheegay in xuduudaha qaar gobolada ay isdhaafsan yihiin oo xaqii la rabay inay dadka u ilaaliyaan ay goboladaasi meel kaga dhaceen commission xildhibaanku arintaasi ka hadlay hadaladiisi waxa kamid ahaa oo dhigeen maabkaasi waa maabkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolaysan uu gobolaysan yahay goboladaasi marka aad eegto qaabka ay u dhigeen ee uu gobolaysan yihiin waxa weeyaan halkan gobolka Selel la yiraahdo gobolka Awdal la oran jiray Selel ay ka go'day Selel in yaro raasadii Djibouti ayaa lagu xiray waxaad moodaa in Djibouti la siinayo intii ay ciid ka guranayeen waayam ciid bay ka faqdaan meesha ciid badan bay ka guraan biyaha looga ogolaaday in waxaad moodaa inta iyaga Djibouti inay ku kaaban tahay xagan kale markaad eegto gobol Highland la yiraahdo aynaan inuu gobol Highland la yiraahdo ma naqaano inuu Sanaag baan naqaanaa gobolka Sanaag bari iyo Sanaag galbeed dhanka doonaan niraahno laakiin gobol Sanaag la yiraahdo baynu naqaanaa Sanaag waxa weeyaan in Highlandka waxa weeyaan waa gobol waxa magacaasi wuxuu ka hirgalay oo ka caam yahay Puntland baa Highland gobolka la yiraahdo anu ma garanayo in Puntland inta loo gooynayay waxa gobolka loo sameeyay oo dhaharay ay caasimo tahay oo aanay jirinna gobolkaasi oo aan Soomaaliland aynaan lahayn ayaa jira marka taad ka timaado nuxurka ugu weyn ee uga socda waxa uu yahay gobolkii la oran jiray Waqooyi Galbeed waxa loo gooyay afar qaybood guddiga waxaan ugu baaqayaa in buugan aan la qaybin buugan way qaybiyeen buuga in aan la qaybin la soo ururiyo halkii la geeyayna la gubo buugaasi haddii kale laga jaro khariidada laga jaro oo ay ka daba tagaan iyaga haddii kale waxay iyaga ku ceebaysano iyaga xuquuqdii aadamaha ee Soomaaliland iyaga meel kaga dhacay ma waxa ilaaliyaan iska daayo xildhibaan Axmed Barkad Obsiyo ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in 6 goobood ee waqooyiga Hargeysa ee muranku ka taagnaa aan doorasho lagu gali karin ilaa murankaasi xal waara laga gaaro xildhibaanka ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay kadbedelka ay komishanka doorashooyinku sameynayaan ee ay ugu bedelayaan waraaqaha ama shahaadooyinka dadkii aan hore u qaadan iyo dadka uu ka lumay in aanay lahayn wax serial number ah oo tiradooda la raaco isla markaasina waxa uu xildhibaanku sheegay inay hadhow ka imaan karto muran ka dhexdhasha arintaasi isagoo arrimahaasi ka hadlayna hadaladiisi waxa kamid ahaa ugu dambeyn goobood doorasho kama dhacayso waayo waxa weeyaan murankii halkii uu taagan yahay xukuumad go'aan ka gaadhayna ma jiro mar walbana waxa la yiraahdaa doorashada dambe ayaa go'aan laga gaadhi wali go'aan laga gaadhayna ma jiro lamana sajilin oo 6 goobood banaanada lagu soo sajilay suuqa inta xagga shay la geeyay ayaa meel kale lagu soo sajilay waxa leeyahay ninku wuxuu ka bedelan karaa goobtii uu ahaan jiray waraqana lagu fucdaynaya waraqahaasina ceebtooda ceeb baa ka soo socon karta oo waxa weeyaan in cid waraqahaasi ma laha serial number ma laha isdaba jooga marka waxa weeyaan serial number maadaama aanay lahayn waxa dhici karta in waraqo badan oo forgery ay soo dhex raacaan laguna kala badin doono hadhowna iminka xisbiyada iminka saddexda way ogolyihiin ka hadlaymaan adiga saddexda way ogolyihiin laakiin hadhow calaalkoogu oo inagu soo bixi doono markhaatina aan ka ahaan doono inay ogolaadeen siday doontaba ha u dhacdeen xildhibaan Axmed Barkad Obsiyo ayaa waxa uu ka hadlay murashaxiin rabay inay u tartamaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada isla markaasina ay xukuumaddu xidhay oo ilaa haatan xidhan waxaan u sheegay in ay sharci darro tahay lagu ku xidhayn waa xaq darro waa ninka musharaxii waxa waa nin wadaniya waa nin Somalilandra waa nin xaq u leh inuu waxna doorto lana doorto marka dembi haddii aanu gelin qofku wadaniga ee Somalilandarkii maaha in la iska xidho uun ya ama hada murashax ama hada nin civil oo caadi ahaade waa xaq darro ku xidhan yahay waxana weeyaan in si dhaqso ah loo sii daayo
nimada xorriyadooda loo ogolaado ninku inuu si xorriyada u tartamo tartankana ayaa loo baahayay inuu maartay nabadiisa iyo la ilaaliyo waa ninkii la filay in la ilaaliyo buu ahaa ma ahayn in la xidho ma ahayn waxa weyn in la ilaaliyo bay ahayd marka waa cadaalad darro. Boqor Axmed Cabdi 5 TV Hargeysa.